وانا salaamay lahaantiinba waxaan rajeynayaa inaad fiican tihiin meel walba iga daawanaysaan hadda waxaa jirta su'aal soo noqnoqota taasoo ah dumarku maxay ugu xanaaqaan erayga naaya waxaan doonayaa maanta inaan idinla wadaago fikirkayga ku aadan erayga naaya dumarku waxay dhahaan waxay dhihi naaya haddii aad dhahdid ama naag ah ama nin ah waxa doontaba ah haddii aad qof dumara yaraataya iyo weynaatayaba aad ku dhahdid naaya qofka ku dhahayayo qofku doonaha ahaada ama nin ha ahaada ama naag ha ahaado jawaabta aad heshay ugu horeysa waxay tahay naagtaada ma ihi iyo ay dhihinaya markaad weydiisid sababta ay ku diidayaan anigu shakhsiyan waxaan ahay qof dumara erayga naayana maalinkan yaraa intaan garaadsaday deen aqli yeeshay ilmo yar aan ahaa ilaa maanta inta ka dhexle waligay ma diidin erayga naaya anigu sidaan u arko waa eray wax walba wuxuu leeyahay lid buu leeyahay erayga naaya waa lidka erayga wariyaa marka hadiiba uu wariyaa jiro dee naayana way jirtaa marka anigu fikirkan ka aaminsanahay waa mid togan halka dad badan ay ka aaminsan yihiin dhinac taban ama fikir taban ay ka haystaan in badan oo sideedoo kale oo dhinac wanaagsan ka aragto waxba u arkin erayga naayana way buuxdaayo way badan tahay yana sidaan horeyba u sheegay erayga naaya waa lidka erayga wariyaa salahan haddaad doonaysid inaad qof lab waxa lidku aad dhadig soo maaha marka haddaad doonaysid qof dhadig inaad u yeedhid ama aan dhaho lab iyo dhadig wuxuu doona ha ahaado waxaad doonaysaa qof hortaada jooga inaad u yeedhid ama ka yara durugsan waxaad ugu wacdaa waxay noqonaysaa si guud inaad hooy dhahdid oo kale ama inaad dhahdid naaya ama wariya inaad dhahdid oo ugu yeedhid waxaad rabtaa magacuyaal qofka kuu soo jeedinaya dhugtiisa saad ula hadashid waxaad ugu yeeraysaa tusaale ahaan wiil waxa ka soo horjeeda gabadh ama lidku ah marka aad gabadh la hadlaysid gabadh ma dhahaysid gabadh kaligeed ma dhahaysid gabadhay baad dhihi wiil markaad la hadlaysidna aad rabtid inaad u yeedhid ama soo jeedisidna wiilow marka sidaas leegun baad naayana u adeegsanaysaa qofka dhadiga ah ee doonaysid magaceedana aadan garanaynin inaad soo jeediso ama aad la hadasho qofkaas uu kuu soo jeesto ama aad wax dhahdid naaya marka naaya anigu uma arko wax ceeba ama liidida ama hoos u dhigida qaar markaad weydiisid muxuu yahay macnaha dhabta ah ee erayga naaya ama maxay tahay sababta rasmiga ah ee u diidaysid erayga naaya waxay ku leeyihiin naaya waa adoonsi adigu marka aad aaminsan tahay ka qof dumar ahaan inaad qof ku adoonsan kara ama aad qof adoon u tahay dee waxaad ogaataa inaad adoon tahay maxay la adiga ogolaaday ilaahi subxaanahu wa ta'aala baa cid walba dunida joogtay ay adoon u tahay rag iyo dumarba marka adigu qofna adoon uma tihid ha aaminin wax walba ay horta wixii lagu fasiray noqdan wax qurux badan hadii la damco in la fool xumeeyo waa la fool xumeyn karaa marka erayga naaya adoonsi ma aha hay'ad dumarku adoon uma aha ragga uma aha dumarku iyo ragguba waxay adoomo u yihiin raxmaanka abuurtay ha aaminin erayga naaya inuu yahay adoonsi halka in kale ay aaminto ay dhahdo erayga naaya waa naagaysi oo dhinac kale iyana ay u qaadaan waxay dhaheen waa ixtiraam darro erayga naaya in qof loogu yeedho halka dumarku ay adeegsadaan erayga wariya ay adeegsadaan in la eg hadayse kaba badnaynba inta naaya raggu ay adeegsadaan marka naaya iyo wariya midna ixtiraam darro ma aha waa hadaan laga dhigaynine wax walba wanaagsanna waa la xumeyn karaa saan horeyba u sheegay in kale waxay dhaheen waa liidid iyo yasid cid ku liidi karta ama ku yasi karta ma jirto dunidan dusheeda dunida dadka saaran haday ku wada liidaan ama ay ku wada yasaan qofka naftiisa ixtiraami kara ee sharfi kara waa adigu niyadaada iyo qalbigaaga intaad ku haysatid inaad tahay qof ixtiraam leh oo sharaf leh aad tahay cidna qiimahaaga hoos uma dhigi karto kuma liidi karto hoosna kuma dhigi karto aaminta marka hore dumarka ka xanaaqa erayga naaya hadii aysan jirin micna lagu qanci karo oo ka turjumaya xumaan oo eraygaasi salka ku hayo waxaan anigu aaminsanahay inay iyagu daaqad ka arkeen eraygaasi inuu yahay wax xun iska dhaadhacsiin iyo ku tiri kuteen mar waxay yiraahdaan rag iyo dumarku waa isku mid marna waxay yiraahdaan erayga naaya waan ka xanaaqaya isku meel ma galaan haddii erayga rag wariya kama xanaaqaan wariya iyo naaya waa laba erayo maartay isku lid ah
waa yeedhma aad qof ugu yeedhaysid aad doonaysid dhugtiisa iyo baraarugiisa inaad ku heshto qofka waa wax magacuyaalahoo doonaysid qofkaasi adoonba magaciisii sheegin inaad kula hadashid ood isku fahamtaan qofkii wax micno ah oo intaa ka badan uu samaynayaa ma jirto laakiin haddaad adigu aamintid inuu yahay wax xun wax liidma ah ixtiraam darro adoonsi naagaysi qofiba dhinac uu u qaado qofiba dhinac uu maaragtay u jiido dee adigay ku gaar tahay markaa iyada ah kuwa yidhi waa naagaysi ereyga naayaa oo waxa ay dhihi karaya ninkayga kaliya ay dhihi karaya ereyga naag waxaa kasoo horjeeda oo maaragtay opposite ku ah ama lid ku ah nin marka ninku markuu naagtiisa ku leeyahay tani waa naagtayda qof buu baraya ama wuxuu doonayaa inuu ka hadlaba naagtiisa waa naagtayda okay naag ereygii ahaabaa waxaa la raaciyey ama magacuyaalkii ahaabaa waxaa la raaciyey tayda oo lahaansho ah marka uu leeyahay naagtayda wiilkayga gabadhayda wuxuu isagu dadka ka leeyahay uu ka xigo ninkeeda markay ka ogolaatay naagtayda maxay dadka uga diidaysaa naayaa marka loogu yeedho waa su-aal waa baktiga ma cunee fuudkiisaan cabaadi la sheegi jiray qofka diida naayaana naagna ogol naayaana diidaan way aaminsan yihiin dumarka naayaa diidani inay naag yihiin way aaminsan yihiin way ogol yihiin naayaana way diidaan marka waxay noqonaysaa baktiga ma cunee fuudkiisaan cabaa waxaa jira erey luuqad ahaan sax ah oo luuqadda aan khalad ku ahayn laakiin isticmaalkiisa meelaha qaar aan ku habboonayn iyadoo jirto beddelkiisa oo qurux badan oo ku habboon meesha iyada ah ereyga naayaa iyo waryaa luuqad ahaan waa ereyo sax ah laakiinse meelaha qaar waa looga habboon yahay dadka in loogu waco tusaale ahaan haddii ay jirto munaasabad dad badan isugu yimid qof baa mikrofoonka gacanta ku haya dadka war u jeedinaya qofkaasi dumarka meesha jooga mid ka mid ah ama giddigood ragga meesha jooga mid ka mid ah ama giddigoodba uguma yeedhi karo naayaa ama waryaa ma dhihi karo ama naayaada iyo waryaada midna ma dhihi karayo maxaa waa laga qurux badan yahay xoogaa ixtiraam darraa halkaa ka muuqata wuxuu heli karayaa beddelkiioo ka qurux badan uu isticmaali karayo qofkaasi taasi waa qodob dhinaca kale dadka diidaya gabdhaha dumarka si gaara diidaya in loogu waco naayaada ama naayaa in loogu waco diidayay wax markaad diidaysid adigu waad ogtahay dabcan waxaad ku diidaysid marka dadka kalena si ay u ogaadaan oy ugu qancaan waxay u baahan yihiin inaad u sababaysid marka gabar walba ama qof walba oo dumara oo naayaa diida sababaha ay ku diidayso waa inay u sababayso dadka wax markaad ogolaanaysidna sidaas la eg markaad wax aqbalaysid eed ogolaanaysid waxa waa inaad u sababaysid sababaha kugu kalifay waxaas inaad aqbashid dumarka diidaya naayaa in loogu yeedho ee aqbalaya in lagu tilmaamo ama lagu dhaho waxaa tahay naag rag ah baa tahay ee farxad moodaya ama wax ammaan moodayay waa inay diidaan waxyaabaha la midka ah yacni waxaa tahay naag rag ah qof dumarkii markay wax wanaagsan samayso ama wax qurux badan samayso wallaahi qoftaasi waa qof adag waa naag rag ah waa naag rag ah beddelkii la dhihi lahaa waa in la dhaho waa naag dumara waa in la dhaho dumarnimadaada waa inaad qofku waa inuu ogolaado waxa uu yahay suurtagal bay noqonaysaa hadday gabadh diido ama qof dumarihi diido aniga in lay dhaha ma aha waxaa tahay naag raga waa in lay dhaho haddii wax la leeyahay waxaa tahay naag dumara tahay oo dumarnimadayda maaragtay la ii qiro oo maaragtay la iigu qurxiyo anigoo ah qof dumara qof walbaana si uu wax u arki karayo oon ogahay dadku inaysan isku caqli iyo isku garaad iyo isku fikir iyo isku aragti aysan ahayn qof walbaana ra'yigiisa iyo aragtidiisa uu ku ixtiraamaya qofna aan dhaleecaynayn dhaliilaynin xumaynaynin ereyga naayaa dhan walba markii aan u qaaday dhinac kasta markii aan u qaaday wax xumaana oo iiga soo baxda waan waayey weligay iyo allahay ma ahayn qof aaminsan ereyga naayaa inuu xumaan ka turjumayo liidmo inuu ka turjumayo ixtiraam darro inuu ka turjumayo adoonsi inuu ka turjumayo ma aaminsani mana aaminsanaan doono waxaan rajaynayaa idina inaad igula wadaagtaan fikirkiina ku aadan ereyga naayaa sidaan u sheegay horeyba qofba fikri buu ka leeyahay oo maaragti ka aaminsan yahay rag iyo dumarba qof walba muuqaalkan gaadho bal waxaad sheegtaa ood hoos maaragtay noogu reebtaa fikirkaaga ku aadan ereyga naayaa haddii aad u haysid micno dhaba oo ka turjumaya xumaan oo ereygaasi salka ku hayo iyo haddii aad adigu u aragtid dhinac togan ood naayaa inay la mid tahay waryaa naagi inay kasoo yacni inuu
naayaa inay kasoo horjeedo ama lid ku tahay waryaa ninna inuu naagi kasoo horjeedo lab inuu dhadi kasoo horjeedo maxaa yeele wax walba ay labay ka kooban yihiin muuqaalkan haddaad dhamaysato in horta halkan isla soo gaarnay kaaga mahad celinayaa fikirkaaga fadlan waa muhiim hoos noogu reeb maxaa yeele waa su-aal isweydiin mudan bulshada in badan oo khalad ka aaminsan eraygani hadduusan khalad ahayn in laga jaahil bixiyo u baahan si ay uga waantoobaan eraygan diidmadan ay maaragtay ka keenayaan markaste dumarka badankoodu ma dhihi karayo laakiin qayb ka mid ihi ay ka keenayaan diidmada way leeyihiin erayga ayaana loogu wicin eraygaasi xun maaragtay salka ku hayaa bal idin hoos igu reeba wayna muuqaalka kan xiga insha allah nabadii caafimaad baan idinka tegay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh